Assalamu alaikum kusoo dhawaada English with Naja. Maanta waxaan baranaa past iyo present. Let's start. Okay, number one waxa weeyaan I think waxa weeyaan waxaan u malaynayaa. I think waxa weeye waa present, past geedin waxa weeyaan I thought waxa la soo dhaafay. I think macnaheedu waxa weeye waxaan u malaynayaa. I thought waxa weeye waxaan u malaynayay. Okay. Tusaale ka bixinin I think you are busy at work. Waxaan u malaynayay inaad shaqada ku mashquulsan tahay. Markay past noqoto waxay noqonaysaa I thought you were busy at work. Waxaan u malaynayay inaad shaqada ku mashquulsanayd. Okay, I give waxa weeye waan ku siiyay. I give you a gift. Waxaan ku siiyay hadiyad. Give-na waxaan ku siinayaa hadiyad weeye. I give waxaan ku siinayaa gift. Hadiyad baan hadda ku siinayaa. Okay. Past geed waxa weeyaan I gave you a gift. Waxaan ku siiyay hadiyad. Okay. See waxa weeyaan waxa weeye is I see you waan ku arkaa. I show you waan ku arkay. Yani horaan ku arkay waa past. Okay. Sit waxa weeye waa fadhigii. Marka I sit waan fadhiistaa. I sit waan fadhiistay. Okay. I sit here. Halkan baan fadhiistaa. I sit here. Halkan baan fadhiistay. Yani waan soo fadhiistay. Horaan soo fadhiistay. I say waxaa ku yidhi I say you are beautiful. Waxaa ku leeyahay waad qurux badan tahay. I said you are beautiful. Waxaa ku yidhi waad qurux badan tahay. Horaan ku yidhi calashaan. Okay. I take a pen. Waxaan qaataa qalin. I took a pen. Waxaa qaatay qalin. Okay. Waxaa ku xiga I sleep. I sleep macnaheedu waxa weeye waan seexanayaa. Waa present. I sleep now. Haddaan seexanaya. Past geed waxa weeyaan I slept very well. I slept well. Waxaan u seexday si fiican yani waad soo seexata waa dhawaatay. Okay. Right. I write a letter. I write a letter. Waxaan qorayaa warqad. Waxaan qoraa warqad. I wrote a letter. I wrote a letter. Waxaan qoray horaan u qoray waa past warqad. I get a new job. Waxaan helay shaqo cusub. I get weritaan. I gotna waan helay horaan helay. I getna haddaan helay yani.